waxaan imtinaan mahadcelin u dirayaa walaashay hodan maxamed inshaar in aad ii ahayd hooyo labaad wax badan jiritaankaada runtii qiimo weyn ayuu ii leeyahay waana kaaga mahadcelinayaa wax badan inaad i garab istaagtay welina waxaa tahay qof aan ku faano weligeena aan kugu faani doonaa waxaan halkan imtinaan iyo mahadcelin u uga dirayaa dhammaan walaalaha igu xiran daawashadiina kommentiyadiina hadalladiina macaan runtii wax badan ay nolosheeda ka bedeleen cumarkii shalay ahaa shaqaale shaqeeyo subaxdii hadda ka laho inuu isu bedelo qofkaas maanta Cumar Inshaar la yaqaano adinka sabab u ah waxaan ilaahay uga mahadcelinayaa caafimaadka dhalinyaranimada iyo anigoo wax badan qaladyo galo laga yaabo hadalladayda dadka qaar inay ka xanaajiyaan ama shay siyaasad ahaan uu ku qanacsan yahay in aan ka hadlo kadibna aan ka xanaajiyo laakiin wali ay jecel yihiin qadariyaan daawadaan runtii waa shay aan la heli karin dhagta soo dhaw wax yar alxamdulillah siyaasadda aad uga mahadnaq kumana badna kanaalka arrimaha Soomaalida gudahoodana ma bagalnama aslan yaani xiliyada qaar marmara waa laga yaabaa laakiin manhajkanaga ujeedkanaga arrinkan ma habeeraatay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ma maqashay wax lagu magacaabo maanta aadan u maqalna waliba gaar ahaan waqti xaadirkan aan noolnahay kelmadan Englishka macnaheedu yahay imtinaan mahadcelin waad dhihi kartaa oo haddii aad samayso isbedel aanan laga sheekayn karin noloshaada ku samaynayso website-kan caanka Psychology Today waxa lagu qoray baaritaanadu waxay muujinayaan in imtinaanka tabcan yani magac aad iskugu mashquulinin waanu imaan doonaa in imtinaanka qadarinta gratitude-kaas mahadcelinta waxyaabaha wanaagsan ee aan haysano iyo wanaaga dadka kale aan kala kulmayno markan arrinkan aan taqdiir ku sameeyno aan fiirino aan oga mahadcelino in noloshanada boqolkiiba boqol isbedelayso in aan dad kala noqonayno arrinka ma taqaana runtii murugta leh murug maahan yani waxaan kama hadlayno arrinka cajiibka ee runtii yani markaad u fiirsato xoogaa qiiro aad dareemayso waa in anaga ka muslimiin ahaan shay 75 mar quraanka kaliya lagu sheegay 75 mar dhalinyaradana maanta ayna ku baraarugsanayn laakiin dhalinyaro galbeed ah aanan muslimiin ahayn weligood quraan aanan arag aanan xitaa laga yaabo inayna maqal challenge u galaayo ku tartamayo internetka hadaad furto taban gaar ahaan YouTube-ka waxaad arkaysaa muuqaal ciwaankiisu yahay challenge 30 maalin oo ah gratitude-kaas aan sameeyno yani imtinaankan aan sameeyno 30 maalin ayay leeyihiin dhalinyaradaas xitaa aanan muslimiinta ahayn 30 maalin ayaan fiirinaynaa kaliya nimcooyinka aan haysano aan qadarinaynaa bogaadinaynaa u mahadcelinaynaa waana u mahadcelin yani qof walba oo wax wanaagsan sida ay leeyihiin ii sameeyay waxay leeyihiin subaxdii markaan soo kacno muddo 30 maalin ayaan waxaan samaynaynaa mahadcelin yani 10 shay ayaan qorinaa markaan soo kacno subaxdii waxaan leenahay alxamdulillah yani gaari ayaan haystaa caafimaad ayaan leeyahay waxaan fiirinaynaa ay leeyihiin waxyaabaha wanaagsan aan haysano ninkan يعني مقال uu ku qoray website-kii aan ku soo bilownay Psychology Today wuxuu leeyahay markaad la kulanta dhacdo naftaada halis geliso oo aad soo badbaado marka koobaad noloshaadu way isbedelaysaa waxaadna baranaysaa ayuu leeyahay dabcan qofkii ku baraarugsan mahadcelin yani ninkan wuxuu leeyahay anoo fuulaayo buur baraf ayaan u malaynay inayd ayaan soo dhacay yiri wuxuu ka soo dhacay 30 mitir sida caadiga takhaatiirta waxay ii sheegeen ayuu yiri in aan dhiman lahaa 30 mitir qof ka soo dhacay wuxuu yiri ugu yaraan waxaad noqon lahayd naafo laakiin wuxuu yiri waxba iguma dhicin maalinkaas ayuu yiri noloshada way isbedeshay alxamdulillah ayaan marwalba dhahaa yani waan dhiman lahaa ama waan si xun ayaan u jajabi lahaa inaan micnaha aan weli noolahay oo aan caafimaad qabo wuxuu yiri waaba shay aan la heli karin waxaana iga yaraaday ayuu yiri murugtii iyo xanaaqii iyo qiiradii iyo damaci badnaa in aan caafimaad qaban socdo oo ay macquulayd inaan ahaan lahaa buri nolosheeda inta ka dhiman qof naafa ah waa shay aan la heli karin marka koobaad falsafo galbeed maqaal meel lagu qoray bal dhinacan yara dhigno waa muhiim laakiin dhinaca iska dhigno kelmadda shukr oo bal qiimo ahaan yani wax badan ka weyn imtinaanka gratitude-kaas ka weyn quraanka markaad fiiriso waxaad arkaysaa in intaasoo mar lagu sheegay ayna ku xiran yihiin nimcooyinka arrinka cajiibka nimcooyinka aan haysano yani adduunkan hantida iyo maalkan adduunkan ilaahay ugu talagalay in lagu socdo inay ku xiran tahay shukriguna dabcan ma ahan kelmado aan hadda meel iska istaagno shukran alxamdulillah ama shukran iska dhahna kaliya ma ahan waa shay u baahan in la sameeyo yani fiiri hadda i'malu ala daawud shukran shay la samaynayo aan kula wadaago aayado ka dhigayo in aad eber ka soo bilowdo fahanka shukriga aslan waxa laga wado imtinaanka waxa laga wado يعني فيريا نعمة سورة القمر نعمة من عندنا نمعو كذلك نجزي من شكر وحاجر قصنين بليونير يعني قلبات حتى أنا المسلم هين يعني كون كان إلهي سيدو أمام الأسكا يقان نين كان بليونير أيوها وبليونير معناه وأن وقت هذا أونلاين كدبنا وحيوي دكوا وحيوي دينا يعني سرت أرنكان حقوقا كاني
macnaha waxay sugayeen inuu dhaho subaxda xilligaasaan kacaa waxaasaan sameeyaa intaasoo saacadood ayaan sameeya yani ayaan shaqeeyaa wuxuu ugu soo koobay keliya hal kelmad mahadcelinta xidhan yani what you mean man yani mahadcelin maxaa ka wadaa wuxuu yidhi subaxda markaan soo kaco waxaan ilaahay uga mahadceliyaa ayuu yidhi xaas fiican inaan qabo yani macnaha inaan caafimaad ku soo kacay in yani hooyay aabba maalan aan leeho kale tusaale ahaan in gaariga macnaha gaari aan haysto yani wuxuu yidhi subax kasta markaan soo kaco intaanan shaqada aadin ayaan uga mahadceli xitaa wuxuu yidhi dadka ila nool uga mahadceliyaa waxa wanaagsan ay ii sameeyeen waan ammaanaa wuxuu yidhi noloshada way barakowda cajiib يعني حتى هدان سي ودنا فيريا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون أرن كحيرن معناها بدبادو يعني مركا ديمان قارتي تصالحان أما أدو إلى شل كابد بادي أما دقال كابد بادي أما حالد يعني هلس أد كبد بادي ومركا أد امتنانك إيه الشكر أد بالله بالهيد إن إلهي كسوبت بادي يعني حتى فير أرن كني معاد لحريره يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون مهد علن ينمعضا يعني وباسكو حرين أصلا تضباطني شن مر أي قرآن كله شاقي لكن أنا جماعة النصيب حموتها وأنسكه المنصنهاي هل كدلني يرداس قلباتك أي وكلا أردايان شيء تضباطني شن مر القرآن كله شاقي مركا كود امتنانكم حوياي امتنانك وتقدير يمهد علن وحيابها قفك الله كل مايو waxyaabaha wanaagsan ee uu noloshan kala kulmay nimcooyinkaas hadii ay noqoto mid uu Ilaahay toos asaga u siiyay iyo mid uu qof kale u soo mariyay inaad uga mahad celiso yani hadda anaga xaqiiqeeyro qaraaro waxa jirta kaliya aad dareemi karto marka dalka ka tagtood ummada kale aad la tacaamusho kelmadaha shukran iyo mahad celinta iyo thanks I appreciate waxyaabahan anaga naguma badno waan arin qof kasta oo ummad kale la tacaamul uu dareemi karo يعني هذا أنا قلت صالحان ما جرت طلب كلمة قف مركو حكو سماية جهد قد وانقدرنا يا واتكم هاتسنتاي يعني هذا عالم ككلا كلمة تضاد هذا thank you thanks شكرا I appreciate يعني thanks you make my day يعني هذا يو استعمالا مركا ومهد علنتا شيء كستقعد لك ولانتا إناد يعني الحمد لله هذا شيء كستقعد لك ولانتا ضدك إناد قدريسه امتنانك يعني إلهي طبعا أنا waxaad isleeyahay shukr Ilaahay waxaad uga mahad celin kartaa yani maalka uu ku siiyay gurigaas aad degan tahay gaarigaas aad hadii aad gaari haysto kale ama ay nimco kasta oo dadka kale in haysanin yani hatta fiiriya xaaladda nafsiyadeed ee dareemayso idminaanka yani Ilaahay uga mahad celin kartaa ayaad Ilaahay uga mahad celinaysaa macna in hatta xaalad wanaagsan aad dareemayso in yani malaga wali talo ma ku baraarugtay in yani maanta aad xaalad fiican dareemayso inaad dhahdo alxamdulillah يعني أن حالد وناكسن أيان دريمايا وحالقي يابي لها معناه إنان مروغيسنان لا دادك الأيام مروغيسن اطمئنانك يا أمانك إلهي أقوم هذا علي يعني هذا ما أنت ضد هرقيسان برعي قال صعطي قدقيسانيسا أما ميل نبضأ الحمد لله وحكا لنها اسكو مشغولين صومالي لما نلدها أما كان صومالي لدها يعني الحمد لله ده ضد ولا لها يا نبض أين هيسنين أيان هيستا أدي هذا مقدشة كسوغانتين نمعوين كاس هذا هيستا بيرهاس خيرات كاس إلهي أقوم هذا علي وشي معناها وين شيء عادي أماهن يعني حتى وحليهين حولهاس أضاقنيسا رياس كو حريسا حتى معناها أوهاس أمان يعني ضدك صومالي هراكوي حولها له هيس جري أمان قدري معناه إن أي شيء مهم أنا صدق لسانيسا صباح هذه شاكو عضي سانيسا وشيء أنا لهري كرين يعني وحلين امتنان كان حتى مركز برته وحكو برايا نولش هذا معناه خير كان أتكو صعطه يعني dhinac wax kasta oo noloshan yani fiicanada haysata in dadka kale xitaa ay sabab u yihiin yani hadda sidaan ku soo bilaabay aniga ka shakhsi ahaan yani maanta in aan sidaan ay alxamdulillah dad kale ayaa sabab u ah ama aan dhaho kaalin weyn ay ku leeyihiin macnaha qofku wuxuu ogaanayaa markuu imtinaankan barto in nimcooyinkan uu Ilaahay siiyay uuna madaxa taagin dadka kale ee khalqigan Ilaahay abuuray inay sidoo kale sabab u yihiin yani xitaa waxay leeyihiin امتنان كان مركز برات الشكر جاي مهد علينتي التقدير انت يعني حتى فرصتها ضد كلا إناد لا تعامش إسبارتان ومد يعني كن البابك وكفر ماي يعني هذا تصالحان كبساقات سوق هذا دكان أياه وحد كسوقات الشيء مركز ألعاب هذه حريرة العقد أد بحسي كور هذا نينكي الدكان كما قفكي الدكان كلها أن وكاجا مهد علينا ألعابتي إن رادينا يي دركي إن رادينا إن الدكان كذا كهلي وأنا كاجم هذا علينا يصف يعني إن إلى التعامش سعر معقول أنا أديك قدي ننكاس يعني قفكاس ويابي قفكان حوها إنه تاج ولي جنكم إلا باي تاسو كارجن إن قفكاس بطي أن كل وداعو
daraasad la sameeyey oo arrinkan ku aadan sida lagu qoray website-kan aljazeera maydaan oo maasha allah ah yani jaamacad miyaami maraykanka ayaa sameeyey saddex macnaha dad majmuucooyin dad ayay waxay u qaybiyeen saddex qaybood qaybta koobaad waxaa la yidhi ama waxaad qortaan waxyaabaha aad imtinaanka macnaha u mahadcelinaysaan aad ka mahadcelinaysaan aan dhahno muddo isbuuca kuwii labaadna waxaa laga dalbaday ama qaybta labaadna waxaa laga dalbaday inay qoraan waxyaabaha macnaha yani dhibka ku hayo ayna jeclayn kuwii saddexaadna waxaa laga dalbay in ay qoraan shay macnaha iska caadi ah iska dhexdhexaad ah macnaha aanan fiicnayn xumayna wax uun iska qora 10 isbuuc kadib maxaa la ogaaday 10 isbuuc kadib mudanaya limarweyn waxay ogaadeen in dadkii diiwaan geliyey waxyaabaha imtinaanka mahadcelinay macnaha waxyaabahaas ay taqdiirinayaan مثلا mid baa wuxuu qoray shukran yani qofkii meesha cafeteriada joogay yani si fiican ayuu ila tacaamulay shaah fiican ayuu isii ama waxaas ayuu isiyay waan u mahadcelinayaa shay qiimo leh ayuu ahaa waxay ogaadeen in dadka sidaa sameeyey xaaladooda naf ahaaneed marka koobaad ay kuwa kale ka fiican tahay bal xitaa ay sameeyeen jirkooda uu diyaar u ahaa sport si jirdhis macnaha in ay jirkooda caajis xitaa inayna dareemaynin inay nashaad dareemayaan bal waxay leeyihiin intaas macnaha way tijaabiyeen 10 isbuuc macnaha waa muddo macquul ah 10kaas isbuuc kuwan macnaha imtinaanka sameeyey caafimaad ahaan way ka fiicnaayeen kuwa kale iyo xitaa dhinaca xaaladda nafeeday dareemayeen kuwa kale way ka fiicnaayeen yani xitaa waxay leeyihiin daraasado kale ayaa leh sida isla website-kan uu qoraayo daraasado ayaa leh in dadka yani imtinaanka badan oo xitaa ay qof wax u sameeyay qadariyo nimcooyinka aanay haystaan ilaahay uga mahad celiyo aanan waxyaabaha kale fiirinin walaa tamudanna caynayk dadadyogaas kale aanan fiirinaynin ilaa maa matacnaa bihi yani dad kale aanan fiirinaynin yani dhinaca xitaa xaaladda dareemitaanka inay qani yihiin xitaa yani waxay iska dareemi ay ku leeyihin inayba qani yihiin waxayna haystaan xaalad qubuul ah macnaha dadka kale inay aqbalayaan yani ma maqashay inta badan masaarida aad u adeegsata kelmaddaas yani oo dhahaan fulaan cindahu qubuul subxaan allah alladii actaaka alqubuul macnaha qof waxaad arkaysaa dadku iska wajigiisa macnaha la iska jecel yahay yani dadka sidaan sameeya waxay ku leeyihin ay meel u maro yani waa la iska jecel yahay waxayna leeyihin sidoo kale laba waadi laba wado oo aan isku soo dhacaynin ayay kala maraan qofka imtinaanka mahadcelinta sameeyo taqdiirinta sameeyo iyo depressionka iyo murugada iyo noloshaas dankada shaqo iskuma lahan halkaas ayay kala yihiin macnaha way adagtay ayay leeyihiin qof imtinaankan sameyn arrinkan aan ka sheekaynayno in murugo iyo depression balaayo ay ku dhacaan sidoo kale waxyaabaha faa'iidada yani sida maqaaladu ay leeyihiin gaar ahaan midkan maydaan wuxuu leeyahay 2014 sidoo kale baaritaan la sameeyay waxaa lagu ogaaday xitaa fiiriya in imtinaankani arrinkan qofka uu baraayo xakamaynta naftiisa carada xitaa yani xitaa waxyaabaha jadwalada uu degsanayo nolosha uuna samayn karin yani markuu arrinkaas sameeyo ku socon karaa ayay ku leeyihiin bal xitaa caadooyinka xunxun sida iska deynta caadooyinka xunxun iyo sigaarka iyo yani uu ka saacidayo ayay ku leeyihiin yani naftaada kaanaman waxaa sahlanaanaysa naftaada inaad xakamayso طبعا qur'aankaas ilaahay soo dejiyey aan hadda ka soo sheekaynay 75 mar ayaa arrinkan lagu sheegay mahadcelinta wa qaliilun min cibaadiy ash-shukuur arrinka cajiibka dadku inta badan ma mahadceliyaan kuma baraarugsana yani arrinka hadda keenay in aadan ku baraarugsanayn waa wa qaliilun min cibaadiy ash-shukuur marka arrinkan aan baranno runtii isbedel weyn ayuu nagu samaynayaa qof kastoo wax kuu sameeyey ammaan oo mahadceli تقدير وسماء أرنك عجيب كسيدو كان أنت أنا المقال كان قرين شريت تويتر كان ربولي أنا كوسا قروان يرتتر مركز دنبه يعني حدواني ساحل هذا قار إن تاجرد معناه أما جرب استاجد معنوي أهان يعني حتى قف كان أظانا هل ريال سينين أما هل شيلين أنا سينين كلمة كلي كاسو بحضي إن أي كقيمة بدن تاي وحدون كان أنت تهلا حتى كلمتها أفكار كصباحي هاي حضي السنة ولقى قيمة وين أي ليهين طبعا أنت أنا كبحين يعني امتنانك aad samayn karta taqdiirinta juhdiga muuqaalkan la galiyay kanaalka hadaadan ku soo biirin like saar macnaha kada subscribe dheh muuqaalkan haduu ku cajiba طبعا like saar yani ha noqdo muuqaalkan kii ugu badnaa ee like la saaro kanaalkan uga hesho waaniga Umar Inshaar muuqaalkan aan arkan uga hadalay intaan ku dhan yahay wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh